waxaan aad uga digaynaa in nidaam 4.5 ah oo dastuuri laga dhigayo oo hay-ado sharci ah la marinayo inay dalkan ka dhacaan mar iyo laba iyo saddex baan ka dignay ma suuragal ah hay-ado sharci dejin ah oo ku yimid nidaam 4.5 ah in ay ka taliyaan masiir kama dambays ah maxaa yeelay iyagaa waxay ku yimaadeen heshiis iyo is-afgarad siyaasadeed ku yimaadeen waxay noqdeen dad la soo xulay dad la soo doortay ma aha dabcan baarlamaanka la soo doorto ee shacabku codka siiyo oo heshiiska inta aan la dooran lagu wada heshiiyo sida dawladdu u ekaanayso sida uu dastuurku ahaanayo taas ayaa waxaa la dhihi karaa baarlamaanka leh awoodda kama dambaysta ah inta baarlamaan noocaas uu jirin horena uusan u sii jiri jirin waxaa lagu xallin jiray is-afgarad siyaasadeed oo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay khusayso ay iska afgaran jireen hadba marxaladda la marayo Puntland waxay diyaar u tahay wax kasta oo dadka Soomaaliyeed maslaxadeeda ku jiraan danteeda ku jiraan inay qayb ka qaadato waxaan ka digaynaa nidaam doorasho oo sababa dagaalo sokeeye oo sababa dibadhac oo sababa kala irdhow in dalka aan loo horseedin waa mahadsantiin